guddiga qandaraasyada Somaliland ayaa xalay abaalmarino kala duwan guddoonsiiyey shaqaalaha ka shaqeeya isla markaana mas'uuliyiin kala duwan iyo wasiiro iyo qaar ka mid ah marti sharaf ka soo qayb galay xalfadaas ayaa ka markhaati kacay in ay tahay markii ugu horreysay ee shahaado sharafyo la guddoonsiiyo shaqaalaha ka howlgala guddida qandaraasyada. Shaqaalaha guddida qandaraasyada oo iyaguna halkaa xalay ka hadlay ayaa sheegay in ay tahay habeenkii ugu wacnaa ee soo mara, taasoo qiimeynta lagu sameeyey sanadkii dhammaaday ee 2025 ayaa waxa ay sheegeen in ay tahay markii ugu horreysay ee qiimeyn ama dib u eegis lagu sameeyo howlwadeenada kala duwan guddida qandaraasyada, waxaanay sheegeen in guddoomiyaha Cabdo Axmed Aayir uu yahay shaqsigii ugu horreeyay ee shaqaalihiisa u koorgala. Waxa ay mas'uuliyiinta halkaasi sheegeen inay tahay tii ugu horreysay ee abaalmarinta shahaado shaqaalaha guddoomiyaha oo ay ku ammaaneen inuu yahay mas'uul isagu inta badan shaqaalihiisa duruufaha ay ku sugan yihiin ka warhaya iyo qaabka shaqadooda oo qof walba ah mid isagu waraysta noloshooda iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin. Waxa ay sheegeen inay tahay markii ugu horreysay ee taariikhda ay guddida qandaraasyadu ay shaqaalaheeda iyo howlwadeennada kala duwan ee ku nool guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka kala duwan ee Somaliland ay guddoomiyaha guddida qandaraasyada Cabdo Axmed Aayir ayaa ka hadlay arrin uu waqti hore ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Cabdiraxmaan Ciro. Isla markaana waxa Cabdo Aayir ayaa ka hadlay xaaladaha ay dalka Somaliland xilligan uu marayo. Uu sheegay arrimo waaweyn oo iyagu xilligan ka soo baxay dhanka Somaliland, cidda cadowgeeda ah iyo cidda kale sida aynay hore u qarsooneyd. Mas'uuliyiintii iyagu xalay xalfadaas ka hadlay oo ka mid ahaa wasiirka jidadka iyo gaadiidka Cismaan Afgaab, wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo mas'uuliyiin kale oo